subaxnimo wanaagsan weligaa ma ku fikirtay xayawaanada kala duwan sida wax u arkaan iyo anaga farq u dhaxeeyo maxay noqon karaan talo maanta waxaan ku hormareynaa lo'da qaabka ay wax u aragto bini'aadamka markuu sidaan u arko lo'da waxay aragtaa kalarka guduudka iyo orange u dhaxeeya ay aragtaa midoo kale markuu qofku u soo dhawaanayo size-ka qofka normalka uu arko in ka weyn ay aragtaa saas awgeeda markii qofku u soo dhawaanayo kale ay ugu ordaa ma jecel in aad loogu soo dhawaado lo'da qoyn cajiib oo ku saabsan indhaha xayawaanada markii la isbabar dhigo indhaha goronyada iyo maskaxdeeda indhaheeda ayaa weyn halka bini'aadamka baararka indhahooda hal saf ay ka yihiin geela baararka indhahooda waa laba saf oo isdul saaran ilaahay xikmadiisa waxay ka difaacayaan buska badan oo ku dhex socda geelka inaysan ka gelin indhahooda videoan waa qaybta labaad ee ku saabsan xaqiiqooyin cajiib oo ku saabsan indhaha xayawaanada kalluunka loo yaqaan dolphin markuu seexanayo hal inuu u furan ayuu seexdaa eyga indhihiisa awood uma laha inay aqoonsadaan kalarka cagaarka iyo gaduudka shimbiraha aad buu u shabahaa midka bini'aadamka haddii aan fiirino gorgorka oo kale aan soo qaadano gorgorka wuxuu leeyahay fokus ama inuu aad wax u soo dhaweeyo wuxuu meel ka arki karaa 1 kiiloomitir iyo bar meel u jirto asigoo hawada ku jiro ayuu wuxuu arki karaa wax yar oo dhulka yaala u jirto 1 kiiloomitir bar si fasiix u arkaya ada meeqa indhay leedahay 1 2 3 waatana kaneecada indhaheeda talo xaguu ku yaala dabcan waa iska dhigi doontaa halkaan uu ku yaala wajiga hore waxay leedahay indhayaal isku tagay intaan waa indhayaal isku tagay intaan waa indhayaal isku tagay macnaheedu ah indhayaal fara badan oo isku tagay ay leedahay si aad u fahantaan soo dhaweeyo kan waa il laakiin laba indha ma lahan waxaan yariiska u jeedaa mid walba waa il sidoo kale kan mid walba waa il waxa u maleynaa hadii kaneeca lii keenay il walba sa u baara hal sano ay ugu dhamaan leeyahay aragga bini'aadamka markuu sidaan wax u arko kaneecada araggeeda ayaa sidaan noqonaya